shirkadda korontada Beko oo la aasaasay bishii May 2014 ayna aasaaseen ganacsato Soomaaliyeed waxay qiimo dhimis ballaaran ku soo sameysay xilliyo kala duwan qiimaha korontada dalka. Sanadkii 2014 qiimaha korontada Soomaaliya ayaa ahaa $1.2 kiilowatkiiba, waxaana shirkadda Beko dhintay qiimihii la iibin jiray korontada isla sanadkii 2014 waxayna ka dhigtay $1 kiilowatki. sanadkii xigay ee 2015 ay shirkadda Beko dhintay qiimihii korontada oo ay ka dhigtay $0.79 senti kiilowatkiiba. qiimo dhimistaas oo aad u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed. shirkadda Beko waxay mar saddexaad dhintay qiimihii korontada waxayna ka dhigtay $0.65 senti kiilowatkiiba sanadkii 2016. maamulka shirkadda Beko ayaa mar afraad ku dhiiraday inay dhimaan qiimaha korontada Soomaaliya iyadoo korontada laga dhalinayo nafto oo ah shayga ugu qaalisan ee koronto laga dhaliyo, waxaana markaa laga dhigay $0.55 senti kiilowatkiiba sanadkii 2017. 2018 ayay mar kale shirkaddu dhintay qiimaha korontada oo ay ka dhigtay reed aad u hooseeya oo ah $0.48 kiilowatkiiba, waxaana si aan caadi ahayn u soo dhaweeyay macaamiisheeda. shirkadda Beko ayaa tixgelin gaar ah siisa ganacsiyada waaweyn sida warshadaha iyo meelaha la midka ah. korontada ugu raqiisan Soomaaliya ayaa ah Beko. haddaba mugdi macsalaamay oo la macaamil Beko.